ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland ayaa howlgal socday in ka badan 48 saacadood oo ay ka sameeyeen xeebaha galbeedka iyo waqooyiga kaga hortagay markab jiidaya xadhiga nooca isgaarsiinta xambaara oo laga leeyahay dalka Jabuuti kaas oo la doonayay in si sharci darro ah lagu mariyo biyaha Somaliland iyadoo oo loo jiidayo dhinaca dalka Soomaaliya. mashruucan xadhiga internetka oo toddobaadkii hore laga furay dalka Jabuuti isla markaana qaybta la geenayo Somaliland ay saami ku leeyihiin shirkado Somaliland laga leeyahay ayaan wax heshiis ah ama isfaham ah ilaa hadda inta la og yahay aanay ka wada gaadhin labada dawladood ee Somaliland iyo Jabuuti, taas oo ah sababta ay ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland ay isku hortaageen una celiyeen markabkan xadhiga jiidaya ayaa sida la sheegay ka dhagaadeegay amar ay ciidan ku siiyeen markii uu soo galay xadka biyaha Somaliland kuna jawaabay cabsi gelin iyo in ay ilaaladii la socotay markabkaasi ay rasaas cirka u ridaan iyagoo ku baqan gelinaya ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland. saraakiisha ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland oo wareysi siiyay wargeyska dawladda ee Dawan ayaa faahfaahin ka siiyay siduu u dhacay howlgalkaasi ay ku joojiyeen markabkaasi, waxaana ay sheegeen in iyaga oo dhowraya ama tixgelinaya masaaliixda siyaasiga ah iyo xiriirka labada dawladood ka dhaxeeya oo wanaagsan ay waqti dheer siiyeen digniin markabkaasi isla markaana aanay wax jawaab ah ka bixin rasaasta laga dul riday markabkaasi. hase ahaatee markii uu ka joogi waayay xadgudubka uu sameeyay markabkaasi ay tallaabo ka qaadeen kuna celiyeen xaggii uu ka yimid. markabkaasi waxa uu ka soo dhaqaaqay dalka Jabuuti isagoo oo jiidaya xadhig cable ah. waxa uu biyaheena meelo ka mid ah u soo galay si aan sharci ahayn oo aan laga wada hadal oo sharci darro ah. markabkaasi waxa uu soo galay biyaha saddexaad iyo biyaha labaad ee Somaliland meelo ka mid ah. markaasna ciidanka ayaa dhowr jeer is hortaagay waa uu iska dhagamariyay amarkii ciidanka. rasaas baani cirka u ridan ciidankii saarnaa markabkaasi. waxaa sidaasi wargeyska dawladda Somaliland ee Dawan u sheegay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha saldhigga Celisay Umar Caadil Qaliinle. taliya Caadil ayaa intaasi waxa uu ku daray in naskii dambe ee habeen hore ciidanku soo gabagabeen howlgalka ka dhanka markabkaasi kuna guuleysteen in ay ka saaraan biyaha Somaliland. waxaana uu yiri markaas xalay goor ay saacadihii dambe ahayd ayaa lagu guuleystay in laga leexiyo wixii biyaha Somaliland ah loona leexiyo dhinaca biyaha caalamiga. halkaas ayaana ay hawshaasi ku dhamaatay. geesta kale saraakiisha saldhigga ciidanka ilaalada xeebaha ee magaalada Berbera oo iyagana uu la xiriiray wargeyska dawladda ee Dawan ayaa sheegay in howlgalkaasi uu ku dhammaay si nabadgelyo ah kana hortageen markabkaasi meel qiyaastii magaalada Berbera u jirta 40 mayl oo jihada waqooyi galbeed ah. halkaas oo ay ku joojiyeen markabkaasi iyo xadhigii uu jiidayaba. markabkaasi kolley waxa uu jihaystay xagga Yaman oo aanu filayno in uu qabtay, laakiin anagu waxaanu dib uga celinay xadgudubkii uu ku soo sameeyay biyaha dalkeena Somaliland. sidaas waxaa yiri sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigiisu yahay magaalada Berbera. wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland Cabdiwali Sheekh Suufi oo maalintii Arbacadii warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa cadeeyay in aanay dawladda wax ogolaanshiyo ah soo weydiisan dawladda Jabuuti iyo shirkadda xadhigan wadata fasaxna aanay u haysanin inay xadhigaasi keenan magaalada Berbera ama ay soo mariyaan biyaha Somaliland. hadalka wasiirka iyo tallaabooyinka kale ay Somaliland sameysay ayaa ka dambeeyay hadal ka soo yeedhay wasiir ka tirsan dawladda Jabuuti oo markii mashruucan la furay munaasabadaas ka sheegay in xadhigaasi uu sii mari doono magaalada Berbera oo uu ku tilmaamay magaalo ka mid ah dalka Soomaaliya. hadalka ka soo yeedhay mas'uulka ka tirsan dawladda Jabuuti oo loogu sifeeyay mid xaqiraya madax banaanida iyo qarannimada Somaliland ayaan ilaa iyo hadda wax jawaab ah aanay ka bixin dawladdiisu, waxaana dareenka diblomaasiyadeed ee labada dawlad uu ka dhex abuuray ka sokow uu si weyn uga cariisiyay shacabka Somaliland.